laakiin hadday iyadoo jiifta intay lugta ugu tilmaanto tiraahdo balaaya kugu dhacday meeshii baas baa tagi baa meel lacagtun lagu urursada alla anigu meesha hadda necbiya barbalorad kitaabkii meelaha ka dayo kitaabna garan mayno orod meelaha ka dayo wararad marun baad wax cuni doontaa ee nadhaaf oo iyadoo lugta ugu tilmaamaysa ay soo saartana ilmahaasi inaanu cashir fahmaynin waad og tahay oo aanu waxba baran karin waxaa la yidhi hooyo qalqaalisa aabba quuris leh maalin walba inta ilmahaaga la soo saaro in la yidhaahdo wararad fiigii la kaalay meeshu dee fii bay ku kala socotaa nadhaaf iyadana waa moraal dil weey aabba quuris leh hooyo qalqaalisa loox qaad weyn waagi hore dee loox baan qur-aanka ku dhigan jiray macallin qaariya walad qayla dheer yaa qur-aanka lagu bartaa baan odhan jirnay macallinka qaariga ee codkiisa la maqlo waladka qaylada dheer ee qur-aanka markuu laaximinayo markaaba qofka dariiqa mariba uu maqlayo warkaas suu wuxuu akhriyay muxuu ahaa saaka war macallin kuwa kalaaba ku maqli war macallin warkaa maad ka qabatid ood ka saxdid macallinku inuuna tahaawun samayn baa la rabaa cajzi inaanu ka muuqan baa la rabaa inaanu qur-aanka la khaldahayo istihaanaysan oo fududaysan baa la rabaa waxyaabahaasaynu horta ku maamaahi jirnay qur-aanku wuxuu ahaa mihno aynu dadka kaga soconnahay qur-aanku wuxuu ahaa wax dadka soomaalida lagu yaqaanee wax barta qur-aanku wuxuu ahaa waxaynaan wax kale baran ilaan qur-aanka baranno waxaan ku gabagabaynayaa gabadh masriyadahoo muslima yaa sagateerad waxay ka ahan jirtay qaramada midoobay 1970aadkii bay ka ahayd 76 waxay qortay kitaab la yidhaahdo gabadha waxaa la yidhahda doctora zuhayra sukri waxay qortay kitaab la yidhahdo alislaam athawri kacdoonkii islaamku caalamka ka sameeyey waxay tidhi markaan qaramada midoobay la shaqaynaya sagateerka guud ahaa ayaa aad waxaa loo muraajacan jiray bay tidhi gumaystayaashii iyo waxay sameeyeen iyo say wuxu gumaysteen iyo nimankaa reer yurub ee qaramo midoobay haddii lagu dhaha waa gaalada caddaanka keliya ee inagu daba socod baynu iskana waxay ii sheegeen bay tidhi in sababa madaaris badan oo africa ka jiray oo qur-aan loo xidhay oo sababihii maxaanku idhahdayay tacliinta maxaanku idhahdaye aan markaa diiniga ku dhisnayn loo saramariyey oo ta diiniga loo hoosaysiiyey inay ka mid ahayd fikrad la qaatay oo ahayd dadkaynu gumaysanay oo dhan saadaynu u nahay ilaa dadyowga muslimkaa mooye war dadka muslimkaa maxaynu saadiya ahlu sharaf inoogu arkilaa yihiin oo nin iyaga ka liituuna inoogu arkaan xataa hadday kuwa adduunka ugu liita yihiin gabadhaasi waxay tidhi waxay yidhaahdeen sirta ah qofka muslimkii inuu cimlaaq yahay oo maskaxdiisa mooye tu kale aanu qaadan karin badiyaaba waa qur-aanka baa la yidhi qur-aanka waxaa ku jira baa la yidhi muslimiintu ilmaha waxay baraan isagoo 7 jira ama 9 jira ama 8 jira oon wax kala baran baa waxaa la baraa kitaabay ku jirto 50,000 oo kelmadood oo mufradul kalimaah oo kala macno duwan waa qur-aanka kariimkaa wey 50,000 oo kelmadood oo luqawiya ku jirta bay tidhi ilmihii marka cimlaaq buu noqonayaa cabqari qofaan dadkanba waxba u arag buu noqonayaayo maskax ahaan iyo cilmi ahaanba u bisil oo u bislaadoo naadija gabadhaasi marka waxay sheegtay inay taasi keentay in azhar ninkii ugu sarreeya iyo madaarista ingiriisku lahaayee ku lahaayeen masar azhar ninka ugu sarreeya iyo madaarista ingiriisku lahaa ardayga thanawiga dhiganaya inuu ardayga thanawiga dhiganaya ka mushahar sarreeyey ninkii azhar u sarreeyey ingiriiska oo kale saasay ula dagaalameen bay tihi in tacliintoodana la qiimeeyo iyo waxyaabahan maadiga tan qur-aanka iyo diintana aad hoos loogu dhigo cagta hoosteeda la geliyo laakiin waxay tihi faransiiska oo kale iyo talyaaniga waxayba adeegsadeen madaarista qur-aankaba in toos loo xidho oo lasoo xidhay gebigeedaba zuhayra sukri kitaabkeeda marka taasay ku sheeg ilmahaagu wuxuu macno ku leeyahay maxay wuxuu macno ku leeyahay kitaabka qur-aanka fahamsiinta aad fahamsiiso